Assalaamu calaykum. Noqo qof adkaysi leh. Adkaysigaagu waa inaadan waxba u ogolaan inay ka hor istaagaan waxaad doonaysa inaad qabato. Markaad bilowday ilaa waxa ay noqdaan waxaad u adag oo aan la mari karin. Waxaan dareemayaa niyad aad u daran markaan arko qof Ilaahay maskax iyo karti ku manaystay oo joojinaya hawl aad ugu muhiim ahayd noloshiisa oo uu bilaabay toddobaadyo ka hor kadib markuu arkay inay ka hortaagan yihiin caqabado aad u yaryar. Haddii adkaysigaagu noqdo mid ku kooban dhowr cisho, waxaa hubaal ah inay aad kuu adkaanayso xaqiijinta hadafkaaga aad ku hayso maskaxda. Haddii aad noqoto qof adkaysi leh, waxaad kordhisan kartaa waxyaabo badan oo ku anfacaya adduunyo aakhiraba. Waxaad baran kartaa cilmi ku anfaca noloshaada inta ka harsan. Sidoo kale waxaad ku guulaysan doontaa inaad noqoto qof xaqiijiya higsigiisa iyo himiladiisaba. Ha sugin inay wax isbedelaan. Haddii aadan ku faraxsan nolosha aad ku nooshahay iyo duruufaha kugu xeeran, bedel dhammaan waxyaabaha aadan ku faraxsanayn halkii aad ka sugi lahayd inta ay duruufuhu isbedelayaan. Noloshu waa sida harka labadiisa gelin. Waxaad wajihi doontaa waxyaabo badan oo kugu qasbaya inaad joojiso hawsha aad haysid. Laakiin haddii aad noqoto qof u nugul wejiyada kala gedisan ee nolosha, adkaysigu ma ahan hadiyad, balse waa xirfad la kasbado. Si fudud ayaad ku tababari kartaa naftaada. Wax kastoo samaysaa waxay saameyn toos ku yeeshaan dabeecadahaaga. Wax kastoo naftaada ku tababartana waxay noqdaan qayb ka mid ah dabeecadahaaga. Adkaysiga iyo isbedelka. Dadka qaar waxay u maleeyaan in adkaysigu yahay inaad waddada keliya u marto. Waxaad doonaysa kuna celceliso waddada ilaa aad ka guulaysanaysid. Taasi gebi ahaanba waa khalad. Haddii ay kuu shaqayn weyso, waa inaad raadisaa xal kale adigoo aadan ka leexanaynin hadafkaagii. Waxaynu soo gaarnay gabagabadii muuqaalka. Haddii aad ka heshay muuqaalkan, like saar siina gaarsii saaxiibadaada ilaa 2 qof intaanu ku kulmi doono kani muuqaalkiisa xiga. Fi amaanillah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.